marka aynu ka hadlayno albaabada daahsoon oo weli la furin wuxuu arinku u muuqanayaa inaynu ka hadlayno film science fiction sida filimka Indiana Jones oo kale laakiin albaabadan aan weli la furin aynu daqiiqadaha soo socda ka hadli doonaa maaha film iyo wax u dhow toona inkastoo ay adag tahay in la rumaysto haddana guud ahaan caalamka waxa ka jira albaaba qarsoon oo qufulan xitaa imikana xidhan taasina waxay dad badan ku keentay tuhun iyo inay su'aalo iska weydiiyaan albaabadan xidhan iyo sababta ay u xidhan yihiin ama loo furi waayay Mausoleum Cortei London aqal qabuureedkan wuxuu ku yaalaa xabaalo ku yaala bartanka magaalada London waxa aqalkan ku aasan Hannah Cortei oo haweeney aad caan uga ahayd sideetameyadii bulshada London waxaana halkan kula aasan laba hablood ay dhashay oo kala ah Mary iyo Elizabeth ugu horeyntii marka xabaalahan dusha laga eego wax lala yaabo ma laha wuxuuna la mid yahay xabaalaha kale ee magaalada London ku yaala laakiin waxa bartanka xabaalahan ku yaala aqal ka duwan xabaalaha kale waa aqal qabuureedka kaliya ee aanu furan lahayn albaabkiisu waxa ku yaala albaab qaabkiisa loo sameeyay qaabka ay masaaridii hore u sameeysan jireen albaabada sida laga soo xigtay dadka mas'uulka ka ah qabuuraha waxa la waayay furayaashii kaliya ee albaabkani lahaa dhamaadkii sideetameyadii markaas oo ahayd markii booqashadii ugu dambeysay soo booqdeen ehelka xabaashani ilaa markaas kadibna lama helin furihii lamana furin albaabkan laakiin ma ogtahay inay dad badan ee aqal qabuureedkan ka aaminsan yihiin inaanu haba yaraatay ahayn xabaal qoraa Ingiriis oo lagu magacaabay Stephen Court wuxuu sheegay aragti dad badan ka yaabisay wuxuu aaminsan yahay in aqal qabuureedkan iyo kuwa kale oo iyada la mid ah oo magaalada London ku yaala loogu talagalay in loo isticmaalo waxa afka qalaad loo yaqaano teleportation inuu qofku intuu ka tago meel ka soo baxo meel kale isagoo muuqaal ahaan marin masaafada labada meelood u dhaxaysa waxa kale oo uu sheegay qoraaga Ingiriiska in aqal qabuureedkan iyo kuwa kale oo magaalada Paris ku yaala ilaa maanta loo isticmaalo teleportation-ka laakiin kaliya waa aragtidiisa cid cadeyn kartaana ma jirto laba qabuuraha boqortooyadii hore ee Shiinaha kadib markuu dhintay Qin Shi Huang boqorkii ugu horeeyay boqortooyadii Shiinaha iyo hogaamiyihii ciidamada Terracotta waxa tala qaran lagu wada gaaray in loo sameeyo boqorka xabaala u gaaray isaga iyo boqorada kale waxaana loo sameeyay laguna aasay aqal qabuureedkan weyn oo dhismihiisa la waday 38 sano waxaana dhisidiisa ka qayb qaatay in ka badan 700,000 oo qof inkastoo taariikhda xabaalahan la dhisay ahayd 2,000 oo sano ka hor muddo dheerna ka soo wareegtay goortii boqorkii Shiinaha la aasay haddana waxa jira goobo xabaalahan ku yaala oo weli la iktishaafin qofna aanu ku dhicin inuu booqdo waxaana kamid ah meelaha ka soocan meelaha kale ee qabriga isla qabriga boqorkii hore Shiinaha Shi Huang waxaanu ku aasan yahay dhismo weyn oo la furin tan iyo sidii loogu aasay sababta loogu qancay laysiga daayay in la furana waa inay culimada dhulku daaha ka qaadeen in aqalkan qabriga gudihiisa lagu aasay qaraxyo hadii la furo albaabka qarxaya iyo sidoo kale in dabino si xeeladaysan loo galiyay qabriga si aanay cidna u galin macbadka ugu weyn Hindiya waxa lagu tiriyaa macbadka Padmana Baswama ee ku yaala magaalada Kerala Hindiya mid kamid ah macaabida dhismaha ugu quruxda badan uguna faaca weyn adduunka wuxuu ka kooban yahay macbadkani 8 qol oo dhulka hoostiisa ku yaala 6 kamid ah waa la sahmiyay waxaana laga helay oo ku jira dahab badan iyo diamond lacag ahaan u dhigmaya 22 milyan oo dollar waxaana kamid ah 8 qol ee macbadkan ku yaala mid kamid ah oo laba mas albaabkiisa ku sawiran yihiin oo wax fura ah lahayn sida laga soo xigtay dadiyowga magaalada degan ee Hindida ah waxa sheegeen inaanay cidna awoodin inay furto albaabkan maxaa yeelay waxay rumaysan yihiin khuraafaad oranaya hadii la furo albaabkan waxa Hindiya iyo caalamka kaleba ku dhacaya masiibooyin waxaana sheegeen dadkaasi in waxa qolkan ku jira aanu ahayn hub iyo qarax balse uu yahay sixir iyo masiibooyin aan loo dhawaan karin afar dhismaha taariikhiga ah ee Masar badankeen weyn wada ognahay inay Masar tahay dhul taariikhi oo ay ku yaalaan dhismayaal qadiimi sida ahraamta oo kale sidoo kale waxa kamid ah dhismayaasha taariikhiga ah ee Masar dhismaha taalada ah ee Sphinx ama Abul Hol waxaanu kamid yahay dhismayaasha ugu caansan uguna qadiimsan caalamka kuwaas oo ka soo horay qowmamkii inaga horeeyay haddana ilaa maanta aan iska bedelin sidii lagu dhisay laakiin marka laga yimaado taariikhdiisa iyo caanimadiisa wax waayihii dama soo shaabaxay warar xana oo la leeyahay waxa dhinaca bidix ee dhismahan ku yaala qol weyn sida la leeyahay waxa qolkan weyn ku xareysan taariikhda ilbaxnimadii Masar iyo taariikhda jasiiradda Atlantis ee la leeyahay ilaa maantana la garan leeyahay inay jirto iyo in kale sida la aaminsan yahay qolkani wuxuu leeyahay laba albaab labada albaabna ma laha meel laga galo waxaana kadinkii ka awday xukuumadda Masar marka xukuumadda Masar la weydiiyo arrintan iyo sababta loo baari waayay sabab la'aan ay iska riixdaa su'aalaha kamana jawaabto shan magaalo dhulka hoostiisa ku taala iminka kama hadlayno albaab xidhan oon furo lahayn balse waxaynu ka hadlaynaa wax taariikhi ah oo mudan in la xuso mawduucana la xidhiidha guri ay lahaayeen qoys Turkiya ayaa sanadkii 1960 mid kamid ah xubnihii qoyska ayaa ka shakiyay gidaar ka dambeeya qolka stoorka ee guriga kadib uu dumiyay wixii lagu arkay gidaarka gadaashiisu waxay ka yaabiyeen adduunka waxaanu galay taariikhda
markii sidaa loo arkay godkan si loo ogaado wuxuu yahay waxay xukuumadda Turkiga u xil saartay baaritaanka godka khubaro kala duwan oo ku takhasustay taariikhda iyo dhulka waxaanay baaritaan kadib culimadii daaha ka qaadeen inay heleen magaalo taariikhi ah oo la yiraahdo Derenkiyo waxay xaqiijiyeen inay magaaladu ka kooban tahay 10 dabaq waxa ku yaala guryo la seexdo meel lagu cibaadeysto iyo xitaa goobo wax lagu barto waxay kale oo xaqiijiyeen inay magaaladani qaadi jirtay 20,000 oo qof iyo xoolahooda khubaradu waxay sheegeen in magaaladani dadkii hore u ahayd kayd ay galaan marka ay dhacaan dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ah ma igala heshan mawduucan